maalin wanaagsan waxaan ku suganahay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool halkan muddooyinka ugu dambeysay baan ku sugnay Cabdiraxmaan Seed wuxuu ka mid yahay dadka baalmihi barnaamijka bal magaalada ka waran muddooyinka ugu dambeeyay aad magaalada soo dalab hadda adigu muddo 2 asbuuc aan joognay magaalada oo dagaal ka socday iyo colaad Laascaanood sidii ahayd hadda ma Laascaanood isbedel weyn baa yimid Laascaanoodii baqaysay ee cadawga haystay xabadda nala dhacay maaha hadda Laascaanood magaalo ciidan laakiin ciidanka jooga waa ciidan gacal ah waa ciidan dadka u turaya waa ciidan dadka xabad ku ridin waa ciidan turaala ka muuqdo waa ciidankii magaalada iska lahaa waa dadkii magaalada iska lahaa weli nimankii meel fog ma jiraan oo ilaa 8 kilomitir bay jiraan laakiin insha Allah taala xadka waa ka saari doonaa laakiin Laascaanood hadda nabada baan joognaa oo isbedel weyn ku yimid magaalada muddooyinka ugu dambeeyay dadka deegaanka waxay sameeyeen boolis bay sameysteen traffic bay sameysteen gawaaridu waa la kala hagayaa waxa la yiraahdaa boolis baa jooga jibinta la dhigayaa waa la baarayaa waxa mataqaana isbedelka waxa weeye asbuuc la soo dhaafay la sameeyay bariyii hore marka magaalo ciidan badan soo galo oo qaar ka yimaadaan qaarba magaalo ka yimaadaan chatka sharciyada lagu gadayo laakiin wixii dhada waa discipline baa loo sameeyay ciidan hagaagsan oo trafficada kala hagaya oo maxaan ku iraahdaa ay sheeg aan dadka xabad ku riday sidii ciidamada Soomaaliland looga bartay meesha laga eriyay oo qofka markay kuwaas waa baqayeen inaguna ka baqayeen iyaguna naga baqayeen xabadda waxay kugu dhufanayeen mararka qaar kood cabsi ay ka baqayaan laakiin ciidamada tan hubka dushiisa baad ugu tagaysaa fuulasa warna adeer haye waa ciidan waa nina ilmadirtiin ciidan wato marka waxa ma taqaanaa isbedel weyn baa ku yimid xagga amniga magaaladii waxa ka muuqda xitaa magaalada dadka ku soo laabanaya oo waxa ma taqaanaa isbedelka maxaan ku dhahay ganacsiyada furmaya makhaayadii furmaya bariyo horeyno nimo wax xasuusta meelaan wax ka iibsano makhaayada wax ka cunno ciriiri baa hadda laakiin Laascaanood kulleydii Laascaanood mid bay qaadanaysaa inay ka soo kabato dhibkii ay gaarsiiyeen ciidamada Soomaaliland laakiin Laascaanood cusub Laascaanood Soomaali leedahay Laascaanood Soomaali oo dhan welcome ah Laascaanood aan cunfi ku jirin iyo cunsuriyad Laascaanood aan aaminsanayn dal gooniyatiin oo Soomaaliya ka baxsantiin ba insha Allah taala halkan ka dhalatay dadkii lahaa baan hirgeliyay wax cid kale ku caawisa ma hebla yimid iyo argixisa timid iyo ummadda garaadadeeda argixisada ku sheegaya haddana ka booyay telefishinada leh aan wax idin la wadaagno anigu deema garan karo qab xalay waxay u dabaaldegayeen dhibkii xasuuqay noo geystay habeen hore waxay u dabaaldegayeen burcay ka dabaaldegayeen xalay Hargeysa dad kale waxbaan isla wadaagnaa reer waqooyi baan nahay dhal yaa naga dhaxaysay 200 iyo intaas qof intay naga dileen bay dabaaldegeen oo soo baxeen dhalashada naga dhaxaysan iyo waxaan wadaagno yani waxa mataqaana cadaawad bay noo muujiyay anaga waxayna tareen ma marka la eego yani mabaadiidan lagu kala duwan yahay صح dadka reer Sool waxay leeyihiin waa base anaga noo ah midnimo Soomaaliyeed صح oo mana dooran inaanu ka goono hadeerna diyaarmeen صح Soomaaliland base waxa uu ah inay ka go'ayaan Soomaaliya inteeda kala soo sano ay cilla taagnaayeen صح oo yani ay raadinayaan inay cilla qoonsata صح markii halka la kala joogo صح halku muxuu yahay niman horta reer UK baana caalanka la isma khasbo nimankan hadda waxay dhahaan Ingiriis baa saan yeelay Ingiriis hadda anigu Ingiriiskan ka imid afti dadweyna la qaaday Yurub oo ka tirsanaa yiri habeenimo ka baxay oo yiri ma rabno hadday iyagu rabaan inay Soomaaliya ka baxaan gobolkan ma raba inuu qayb ka noqdo Soomaaliyeed ay ka baxayaan gobolkan kaliya maaha hadda awdal bay ka bilaabaan oo iyaduna le anaga qorina la dul taagay saaqna la dul taagan yahay Soomaaliya kaga ma go'i karno aragti si qalad lagu unkay oo dhalinyaradii lagu ababiyay oo hadda dhalinyarta Hargeysa joogtay aaminsan Soomaaliland way burburtay haddaan Laascaano naga go'day Laascaano ninkii ahaa baa yiraahdo Soomaaliya ka go'ay wiilka Hargeysa jooga laga dhaadhiciyay Laascaanada iska leh hadda ogaaday Laascaano in reer kale leeyahayna daadar waa cusub ku bariyay dalkan dadka iska leh waa dad Soomaaliya waa dad Soomaalinimada qaranimada iyaga keenay waa dadkii in Cabdullaahi Xasan iyo calanka buluuga waa dadkii Ingiriis dalkan ka eriyay in wiil ka yimid Hargeysa u dhaho Ingiriis baa hadda dad British Library ga tagtay day kuma jirin waxaana xitaa ka sheekeen British Protectorate ka hadlaan Laascaano kuma jirin Laascaano waxay ahayd dhul xoog lagu qabsaday Ingiriisku dadku xoog Ingiriiska qof dhul baahanta intuu heshiis la galay ma orana protect gare
warsangelina dhinac bay kala galeen heshiis gooniye weeye oo in cali shir heshiiska la galeen heshiiska ay isaaq la galeenna heshiis gooniye weeye dhulbaantada ingiriis heshiis kale ma dhaxayn marka waxaan ay xitaa akhrinayaan xitaa riya maalmeedkan ay akhrinayaan dadkooda xitaa haddii even aan kaxayno oon isla tagno haddaan english baarlamaanka isla tagno maantan ka doodno ingiriisku waa caddahay hadda maanta sharciyad maaha waxaan faysal cali waraabe akhriyaan waa huuhaa wey waxba kama jiraan dhulka kan ingiriiska heshiis lama gelin dhul daraawishi joogtay xoog lagu qabsaday aan wax heshay iyagu waxa weeye waa British protectorate bay saxiixeen leeyihiin laakiin halkan ma saxiixin marka waxa mataqaanaa dadkan intaan isku maran deegaanadooda inay ku laabtaan xadbeeloodkooda inay ku laabtaan wey